guud ahaan deegaanka dhib badan ayaa ka jiro oo khalkhal aad iyo aad u fara badan baa ka jira. waan gartay gaar ahaan deegaanka hadda anagu aan joogno oo Shilaabo khalkhal fara badan baa ka jira, dhib badan baa ka jira. dhibka ka jirna waxa weeyaan waa khalkhal. hadda wax badoo dhacayso waqtiga dhacayso ma jirto, laakiin khalkhal gelin dadka la khalkhal geliyay oo cabsi fara badan la dareemayo weeyaan. waan gartay maxaa laga cabsanayaa? waxaa laga cabsanayaa in ay xabado dhacdo oo maleeshiyaadka iyo booliska iyo ciidankan militariga Ethiopia ay xabado dhex marto oo dagaal dhaco. waan gartay maleeshiyada la leeyahay waxay yimaadeen magaalada Shilaabo, bal hadda ka waran oo waase xagee ka yimaadeen? maleeshiyaadka iyo booliska way imaadeen magaalada, waxay ka yimaadeen dhan walba horta marka hore ka imaadeen. xaggan laamiga way ku imaadeen oo geesta iyo dhagax buur iyo xawale meelaheeda ay kasoo kaceen baa lalahaa oo way imaadeen. xaggan xuduudaha kalena way ka imaadeen. kuwa u badan ee hadda degmada jooga ee waqtigan ku suganna waxay ka imaadeen dhankan xuduudaha, iyo kuwa horaan sii joogay oo magaalada sii deganaa weeyaan. kuwii xaggan dhagax buur kasoo qulqulayay la sheegayna anaga weli aad noomayna soo gaadhin, laakiin meelahan qabardaar iyo ku sugan yihiin baa leeyahay. waan gartay maleeshiyaadka marka xagee u socdaan oo ay dhan walba uga soo baxeen oo ay u soo aadeen qabardaar iyo Shilaabo? dadku waxay leeyihiin oo la isla dhex marayaa waxay u socdaan Kaalu meesha la yiraahdo oo suubaankan Kaalu bay gelayaan baa la leeyahay. inkastoo de anagoo ayaga kuwooda waaweyn aanan weydiinin, laakiin dadku waxay u leeyihiin nimanku meeshan ay u socdaan oo Kaalu bay u socdaan oo hawdka Kaalu iyo suubaanka Kaalu bay gelayaan. halkaas ayna mataqaanaa bay degayaan oo joogayaan. dhib baana ka dhici doona oo meesha ayaga iyo qoladii militariga ay isku dagaali doona, sidaa baa la leeyahay. waan gartay bal hadda ka waran dareenka guud ee shacabka magaalada Shilaabo iyo nawaaxigeeda say u arkaan waxa socda? aad iyo aad buu dareenka shacabku u kacsan yahay arrintan. si aad ay dadka u kicisay cabsi taagan weeyaan. ummadu si baa loo khalkhalsan yahay oo awal hore de kulay dad iska colaysan oo weligiiba dhib iskaga soo jiray buu dadku iska ahaan jiray oo weligeedba nabad aad loogama helin meeshan. laakiin hadda arrintan arrin gooni oo bay ku siyar noqotay oo magaalada Jijiro oo laga soo qaxayo iyo markasta oo la leeyahay dhib baa dhacayo oo Shilaabo ay isugu imaanaya oo Kaalu baa isku galaya iyo dhibaato noocaas oo fara badan oo la sheegayo darteed buu dadku la kacsan yahay. waan gartay waxa Shilaabo gaarka ku ah cabsida badan keenay muxuu yahay? sida la sheegayo waa in maaragtay Shilaabo ay daris la tahay meeshan la yiraahdo Kaalu ama Jeexdin oo de ciidamada hadda la sheegayo la leeyahay way soo qulqulayaan, la leeyahay way u socdaan. waan gartay militariga Ethiopia ee ku sugan Kaalu ama Shilaabo ama Harcad ama deegaamada ku sugan iyagu dhaqdhaqaaq ma wadaan? maya wax dhaqdhaqaaq ma wadaan. ciidanka militariga ee meeshan ku sugan xeryahooda bay isaga jiraan. annaga hadda Shilaabo way nala degan yihiin, xeradooda ay ku jiraan, ma soo baxaan magaalada inay ayagoo hawl qabsanaya ama adeeganaya dhex maraan oo fara badan oo weliba iswaardiinaya mooyaane. waan gartay si kale uma dhaqdhaqaaqaan magaaladan ma dhex maraan. sida meeshan hadda la yiraahdo Jeexdin ayada way dhaqdhaqaaqaan oo meesha ayaga u badan oo joogo oo maartay kuwan Soomaalidu oo aad uma joogaan. ayaga marka meeshaas haysto oo inta badan ayaga joogo way dhaqdhaqaaqaan oo hawdka oo dhan bay ku jiraan oo xaggaas aad bay u joogaan, laakiin magaalada gudaheeda iyo meelahan laamiga iyo maartay aad uma joogaan xagga Shilaabo. waan gartay bal hadda waxaad ka warantaa xagee ka degan yihiin liyu boolisku magaalada Shilaabo? qaybahay degan yihiin? waxay ka degan yihiin meeshan la yiraahdo meesha xeradooda qadiimka ahayd ee garoonka kubadda cagta dhabarkeeda. waa markii magaalada Bowta oo kala joogo magaalada dhexdeeda markii la joogo gabalo dhaca bixisa way meesha ah. waan gartay meesha xeradii Serbida waliba bixi ka yihiin meel bixidana ay degan yihiin oo gabalo dhaca bixisa ka magaalada. waan gartay meel kale oo ay degan ma jirto, halkan bay ku aruursan yihiin? halkaan bay ku aruursan yihiin Shilaabo ahaan, meel kale oo ay degan yihiin ma jirto. laakiin sida hadda la sheegayo goboladii kale la siimay sida dhagax buur qabardaar meelaha jeedka oo dhan awal hore waxaa jirtay in military aan la arki jirin, laakiin liyu booliska bas la siimay jiro oo dadka rakaabka ay arkeen. dadka hadda maanta Jigjiga meelaha ka imaada waxay sheegayaan maan arag bay dheen wax liyu boolisa ilaa Jigjiga ilaa Shilaabo waxaan soo maray in military meel kasta. waan gartay bal hadda ka waran saameynta degmada Shilaabo iyo nawaaxigeeda ay ku yeesheen dhibaatooyinka guud ahaan wadanka ka jira. dadku ma soo gaarayaan magaalada Shilaabo oo ka soo barakacaya dhinaca Jigjiga iyo Dirdhabe iyo? aad iyo aad bay u soo gaarayaan. maalin kasta waxaa imaada dad fara badan oo aad fara badan oo mataqaanaa Jigjiga iyo Dirdhabe ka imaada oo soo qaxay. haddadan maantadan bay soo gelayaan, maalin walbay soo galaan. kuwan Shilaabo joogay xataa magaalada sii deganaa laftirkoodan sal deganin oo cabsi iyo walwal badan dareemaya.
markii la dhaho kaalu iyo saxdin agteeda la isku dagaalaya oo halkaas xabad ka qaxaysa ciidanka militariga meesha waa degan yahay kuwii liu booliska waa degan yihiin maleeshiyaad fara badan oo kale meelayo waa ka imaaday Soomaaliya oo magaalada dhex ku qolaya oo horaan aan la arki jirin waa la arkaa cabsi fara badan iyo saameyn fara badan oo walwal keentay baa aad looga dareemaya Shilaabo iyo Nawaaxigeeda waan gartay bal hadda marka la fiiriyo magaalada Qabridahar oo ah xaruntii gobolka iyada maxaad war ka haysaan xaaladeeda iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda Qabridahar siday noo sheegeen dad hadda maanta soo maray iyo kuwa jooga oo hadda aan wacayba waxa on jooga oo meel kasta taagan waa ciidanka militariga wax liu boolis ah laguma arko meelo kore oo xiriyo kore oo kuwa xagga ka imaaday ay joogtoogan mooyaane laakiin magaalada gudaheeda iyo dariiqyada magaalada iyo meel kasta oo magaalada Qabridahar ka mid waxa jooga militariga waan gartay guud ahaan gobolka Qoraxay maxaad ku qiyaasi kartaa xaaladeeda oo isbedela oo ku soo kordhay jawigu waase ma mid colaadeed ba mise waa mid iska kacsan wallahi walaalow jawi colaadeed buu yahay markii la fiiriyo dadku say sameynayaan iyo isbedelka hadda yar muuqda ee awal hore aan jirin marka la fiiriyo jawi wuxuu yahay jawi aan deganeyn jawi colaadeed buu iska yahay waxaaba muuqata xataa in dadku ay kala guurayaan magaalada Shilaabo hadda ayadoo wax dhib u soo dhicin oo wali xabad Shilaabo ka dhacday ayna jirin dadkii oo guuraya la sheegaya oo baadiyaha u guurayo mataqaana siiba qaxaya taana waxa keentay oo dadku wax uu dareemay iyo cabsi uu la dareemay baa keentay markii la arkay mataqaana nimankii liu boolis iyo maleeshiyaadka Soomaalida ahaa oo aad u qulqulayo oo meel kasta yaacayo oo hanjabayo oo dadka xataa ay qudhooda ay ku leeyihiin hadeen maanta qarxin bari bay qarxaysaa ogaada ayaga ku dhaaya xataa dadka sida waan gartay maxaa loogu baaqi lahayd marka guud ahaan shacabka iyo bulshada hawada kala socota waxaan ugu baaqi lahaa dadkeena dhamaan meel kasta oo joogo inaan midowno oo cadawgii soo jireenka ahaa ee in badan dadkeena ragaadiyay dadkeena soo gumaysan jiray ummadeena xasuuqay inaan u midowno oo kala qaybsanaantii iyo tafaraaruqii horaantii ka tanaasulo si cadawgaas aan isku meel uga soo jeesano oo insha Allah xornimadeena ka dambaysta aan u gaarno in dadkeena uu midoobo oo meel kasta oo la joogo isku mid laga noqdo taas ayaan dadkeena dhamaantii ugu baaqilaa waxaan u sheegayaa dhamaan dadka in mataqaana wadanku uusan hadda nabad ahayn awal horena nabad kuma jirin oo isticmaalka oo mataqaana de umada dhibahayo oo gilgilayo oo dhibaateynaya jiray haddana isticmaalka oo qorshe kale isku bedelay oo dadka si kale u dhibaateynaya un baa jira marka horena wadankeena nabad kuma jirin haddana nabadii